iminkan aan mikrofoonka ku weeciyo siciid cabdi xasan qirmadow oo inoo soo jeedinaya maansolo dhaho afkayga waxaana ka codsanaynaa inuu wakhtiga ku bakhaylo. waa mahadsantihiin aad baan idin salaamayaa marka hore. anigu waxaan isleeyahay malaha qoraayada kale iyo abwaaniinta meesha yimi aad baad uga nasiib badan tahay. waa marka koowaad waxaan imi magaalada Laascaanood oo sanaag ahaan la dirsanahay. waa marka labaad waxaa la dejiyay hotel Taleex la yiraahdo oo buur weyn ku dhowdahay. waa marka saddexaad abwaan hurre iyo Yuusuf Shaacir baan la deganahay oo wax badan baan ka faa'iiday. waa marka afraad saytuunkii cirgaba halkan yaalo mooy gooraan ugu qabsateene annaga ba halkan taadaan kaga baxo markuu afkii Soomaaligu maqlay badhinka weyn ee Laascaanood lagu qabanayo ayuu xalay ii yimi isagoo qof iska soo marka uu ila hadlay wuxuu u hambaliyeeyay marka ugu horeysa reer Laascaanood abwaan Cismaan Cabdunuur Xaashi oo hanti ah oo halkan inoo jooga oo aynu wada leenahay oo ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeya ayaa fariintaasi xooggeedu ku socota. afkii wuxuu yidhi habeen badhan oo hurdaaya humaag baa yimi dushayda intuu ila hadlay toosii hortayda intuu fadhiistay haddana aamusoo ilmay haddaan dhugtay oogadiisa duxiyo dufan baa hareeyey markaasi haylihiisa eegto dhib iyo diif baa haraysay haddaan dabcigiis qiyaasay haliye iyo waa farxaan haddana indhihiisa fiiqan dab iyo huluc baa ka muuqda haddaan dhugtay cududihiisa nidhisan uu xooggan weeye haddana waa wiiqanyo wuxuunbuu hibanayaa intaan u hinqaday dhankiisa anoo hubsanaya jeerka ku yidhi haybtaada sheego isagoo hugmayoo asqaysan bisana hadlayoo adkaysan wuxuu yidhi hooy ninkow waxaan ahay mahurtada hugaad huwanaysa iyo waxaan ahay himilada afkaagii hooyo iyo waxaan ahay haybadda hibada dhaqankaaga iyo waxaan ahay hiilada hantaan ku ahay dhaxala hub baan ku ahay difaac hooy baan ku ahay la galo hannaan baan ahay qurxoon higsaan ku ahay dhabtii haddana waadi mooganto haraataan kugu qabaa hog baas baad igu riddo dhigay baad u hiilisaan hankaygii baa jabo afgaalaad soo hagteen huteelladii ula baxdeen hooygaygii loogu yimid hashii anigu aan lahaa habboonoo layga qaad habeen baa ii dumo idlaan hayhaabayaa hilowgii iyo xiisihii hamayuntii iyo fiiradii dadkii hore ii qabeen huq baa ka dambaysayoo kuwii ifka kaga hadhaa hoohay hagrashii ay baday hungiyo ciilaan geyin idaacadii yaa hantiyey Soomaaligu meeshuu ka dhintay hadda warbaahinta ugu horeysa maxaa yeelay idaacadii waaweynaa Ismaaciil laga baran jiray marka hadda warka ay sheegayaan qodobadana ka mid ah halkan waa idaacad weyn qodobada wararka ugu waaweyn ku haynana waxa ka mid ah laba rax oo 6 bilood israadinaya ugu dambeyntiis helay Laascaanood qoraxdu waxay uga soo baxdaa bari iyo qodobo kale aan idin hayna waaya idaacadii yaa hantiyey maxaa helay wariyihii afkiisa u hiilin jiray halkii cawkiyo gobdoon ama seherar iyo cigaal halkii dhuuliya garaad codkii aaminay hufnaa higaadii yoonis iyo xukunkii dalmar iyo siraad hilinkii cabdaliyo sugaal hubaashii waan tabee miyaan jiil hanan karo dhanka igaha qabtiraa haybow ii soo kacay abwaanada haajiree hoos iyo naga jira xabaal qaarkoodna ay hawl gabeen huriye sangub iyo sugaal hal abuurdubad iyo salaan boon iyo cali iyo hadraawi gaariye sahal iyo afyare harawe moogi iyo cigaal heestiyo luuqdii tubeec hawraartii saada iyo halowsigii dhuulle iyo halayskiina khaliif sawdkii hibe iyo maryama laxankii jiiree hufnaa fankii haybadda lahaa hayba waan ku naaxi jiray kooxihii onkod iyo horseed miyaanay dib ii habayn haraadkana iga tiray dallintii heellada tiqiin afkooda u heellanaa habeenkii intay baxaan iyagoo ku hamiyin xubaan hablaha la ciyaari jiray sidii hurre iyo cambara murtida ku haasaawi jiray kuwa haddar maxay ku haasaabaan tolo kuwa haddar waxay ku haasaabaan ninbaa wuxuu yidhi marba waxa dhacday gabadh buu maansho u tiriyay dabeedna gabadhi baa fahmi weyday waa ii yimi wuxuu yidhi maxaan ku dhahaa gabadhii waxaad ku tiraahdaa oo hadalka uga bilowdaa may ay fahiimaay focus iyo shabeelay fani lagu qoslaayaay filfil iyo xawaashay iyo wixii la mid ah waayahay sidii hurre iyo cambara murtida ku haasaawi jiray haybtooda ku dhaaran jiray dhigood ka hibeensan jiray
hankoodii maxaa dhambalay maxaa ii hiifayaan hayba ii qowrsadaan hiirtaanyada aan qabaa maasada sii hurinaysee quraagii hagraday higaadii maxaa ka halay muxuu hakadkii u diray habowyo waan arkee maxaa loo hagilaya maxaa helay hooyadii nafteedii huru jirtee ubadka igu haba jirtee maqasha igu haga jirtee haantiya kabadii aloolka heesaha ku sameyn jirtee harkii ooga ii ahayd halkaasaan ku joojinayaa ugu dambeyn afkii waxaan ku yidhi reer laascaanood baa ku kacay daraawiishtii hadda soo kacaysa raalli naga